ceergaawo waxaynu 26 guuradii ka dhignay inaynu sanadkan ku samayno contribution inaynu inagu wax istarno oo wax wanaagsan oo runtii midadal noqon doona waxaynu ku dhacday abaar 6 bilood oo ku dambeeyay aafaysay gobolada qaar dad badanna hantidii iyo duuday lahaayeen ay ka baxeen waxaynu garanay inaanaynu celebration iyo dabaaldeg samayne walaalaheenna xanuunku soo gaadhay ee dhibtu ka soo gaadhay abaartii inaan la qaybsanno duruuftooda waxaa la taargadgareeyey in $10 milyan Somaliland ururiso marka la yidhaahdo 10 waxaa laga yaabaa inay wax weyn idinla noqdaan laakiin waa wax yaroo fudud $10 milyan saan ururina ka badan baan ururin karnaa gacan kali sacab ma tunto haddaynu wada jir wax u qabanno wax ka weyn baynu taa qaban karnaa sanaag haddaa tiri gobolka iyo magaalada ceergaawo idinku waxaas xaq gaara laydinku leeyahy xaqa gaara laydinku leeyahay dowladdan hadda jirta madaxweyne axmed maxamed siiraayo contributionkii ama tabarucaadkii ugu weynaa ee ay samaysay gobolkan ay ka furisay waddadii isku xiraysay togdheer iyo sanaag 300 kilomitir baa loo bareeray cid kastoo ka qayb qaadatay iyo dhiiranaanta runtii xalay markaan soo maray dareen gaaraan ka helay waa wax aad loogu farxo wey maadaama aad idinku tihiin qarankanna waa number 1 horumarka waa ina number 1 ka noqotaan waa in maanta waan wada hadlaynaa reer sanaag iyo ceergaawo waddada 300 kilomitri lacag fara badan oo 300 milyan baa ku baxday 10 milyan oo loogaha loo ururiyo abaaraha oo weliba 10 milyan inta u badan gobolkan ay galaysaa waayo abaartu meelaha ugu badnayn weeye dadkaa la xoolaynaya oo dadkii waxay ka baxeen xooluhu waa la xoolaynaya xoolaa loo iibinaya waa qorshaha dowladda ee iminka aanu samaynay waxaa la samaynayaa balliyo ama meelo biyaha aynu ku qabsanno waxaynu samayn doonaa reegag waxay u badnaan doontaa meelahay abaartu u badnaayeen maadaama aa u badnaanaysaan contributionkaa la samaynaya qaaraankaa la samaynaya qaybta ugu laxadlaa qaadanaysaan maadaama aad tihiin gobolkii intay dowladdu jirtay mashruucii ugu weynaa laga fuliyey waxaan doonayaa hormood ka noqotaan oo ladhaa ceergaawo gobolkii sanaag 10 milyan 2 milyan buu qaatay waxaad ku keenaysaan taa diiwaangelin baynu samaynay 100 wax ku dhow iska diiwaangeliyey gobolkan 100,000 waa inta ka da'doodu ka weyn tahay 16 sannadood laakiin waxaa jira 7 jir ilaa 15 jir ayaa 200,000 ku nool gobolkana wuxuu gobolkani koobsaday ilaa 400,000 ilaa 500,000 ay ku nool yihiin waxaynu ku dhibsanaynaa 200,000 average ku isku soo celinaa ilaa 250,000 $5 baynu ku dhifanaynaa waa halkii milyan baa ka soo baxaya oo soo maaha halkaas halkii milyan ka soo baxaya halka milyan lama oranayo qof walba $5 bixi ka waxaya 20 buu bixinaya 15 buu bixinaya 10 buu bixinaya ka yarina $1 buu dhisaciisa bixinaya average marka la isku geeyo waxay ku soo fariisanaysaa $5 marka 200,000 reer ceergaabi markay bixiyaan $5 halkii milyan banaanku naga waa la socda taama isku ogaanaa reer ceergaawo balan ma tahay taasi haddaba sideenayna bixinayna qaabkayna bixinayna inta guriga lagu yimaado mooha inta kale halkaa waxaa ku qoran waxoogaa aynu seegno halkan waxaa ku qoran saad baa ku qoran halkan iisaagna waa ku qoran warqadaas adoo gurigaaga jooga warbaahintaa laydin soo gelin doonaa waxaa laydin soo gelin doonaa text message bay idinku soo geli doonaan ama telesom ama somtel number gulisana waa ku daraysaan 3 number baa lagu darayaa hawdayda aan hala xishoonin $2 baad ku tuuraysaa $1 baad ku tuuraysaa $5 baad bixinaysaa ka hayaa qolada qaysha waxaa laga yaabaa
ربعي ما أنت عطوس كجرا حوس كسيحوا فالدولة الدولة مع البيئة مع الشاه مع الحوار فوتشسكا وحلقيها وطولت دولة كتب إذا أنت وحلقات رفورة موحي بسنة زينة سلاحة كما يسبو شنو حتى يتوقع كتبتو أما شان دولة كتبتو إذا كان يستعين سعدو أما قلس أما سيادك أما إيد دهبك حدو كدرو وحلقيها واحد وين هنا هناك صباحات وحنا الكبرى الشريعة runtii firfircoonaan baa lagu yaqaanay reer Gaabo dadka kaga horeyseen tii la idinka arko sanadkan insha Allah biidnillah ina ka noqotaan horumar baan idinka filayaa waxaan ilaahay uga baryayaa inuu raxmadka ilaahay noo sii wado nimco fiican baan waxaan ka soo baxnay togdheer ilaa halka xareed waa jirta laakiin waxaan aad iyo aad uga naxsanay waan caddeeyay meelihii barankii aan soo mari jirnay ee aniga faraha badan joogi jiray oo shalay waxba ku arki weynay runtii oo aan neef joogin marka waxaan u baahanay inaynu dib u soo celino dadkeena miyiga inaynu neefkeena dib u soo celino inaynu biyaha qabsano inaynu ka faa'iidaysano inaynu dadkeena istaakurayno insha Allah biidnillah aad iyo aad baan idin salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu